يقولي قربها وحقي تهوس وعك قفك مريكان صوت عبطي قربه أول من مجرو قربك أول ما مجرى داسيد marka laba dhinac oo kala qaadayna nin horta shaqada waa iska jirtaa oo dhalinyaradu waxyaalaha ay ku shaqeynayaan marka aragtid iyo nolosha Mareykanka ka jirta hal maalin lacagta ku soo gashaa waxa laga yaabaa qof dhan inuu happy ku yahay oo meesha ka shaqeynayo oo dhankaas marka ka fiirisid xoogaa waxa is leedahay fursad la isgareysay laakiin dhanka kale iyo dadka mataqaana bulshada dhexdeeda iyo farxadda lagu nool yahay iyo qof dadkii ehelkii asxaabtii walaalihii wixii dhammaan ku dhex jirtid micnaheedu ma malay kartid oo qof go'doon ahayd oo fakar ku nool xilliga aan kula hadlay waa kowdi habeenimo والله باري عنجرة اللي يكاني كود هبينمو هذا كور تلفون عندي ترى هوسا تاجنا دي صدور ما طيرة يكاني سمعنا مريكان برجيل تدبري تلاقيت كجرا عنيسا تدبري تلاقيت كجرا عنيسا مركا حدي مدة كلام وحروق بشارين الله يرضى عنك حين فرينا الله كدقي لما أنتم قاعدين موضوع شدي معدن وين بقرا هاي قول شن قران كري شن قول ردوا حكم بقية هذا الكات هذا قدرت إذا الله حري باتيجي بدن بيسوق جارية إلهي سبحانه وتعالى أرت تصبح صدق كنا ودك اللي جاكيني أنا ويسق وأنا ما بيعترن أرت سفر كي سعدال كواي قدم هذا عاو أيقور رئيسو قري جيجان كتير أدو إله إنه قوان مقالد واي قدمات إنه قوان مقالد واي قدمات أول مرة مدح ديبين ترابينكي مرة هدي هبين شقيني حالي عاوي بس كسب بحدين فلان تريش مسك إن أديرو محن قوسنا محن نجوه الرئي ولي ده ما نسلقن تدبي الاستيد بس مرة أنا بحكمر هذين هي لوير لعكت لوير إمرتي وقبتي هي دكتورنا هذا نعرض ضاه كنت محاد كلها والله مليح قبل مرتين كان قبل بامر أنا بحكمر هذين يقريقان لا إله إلا الله محمد رسول الله ورمي واش تنبا كبلا سيارة إمبريال باكوعتي guriga ku jirta ka bixin hada lix isteed martay haye adar waxa lagu xiray cilmi Minneapolis afar gobol aan soo maray kowde haye maxkamadda maalintii la saaray waxa la weydiiyay afar gobol aray waxa la weydiiyay afar gobol soo martay leeyahay within 3 years waqti aan soo martay afarta gobol maxay ahayd waa su'aalaha ugu badan ee aniga li weydiin doono ilaa rabbi hayga dhigin waxaan dhahay xaq uma lihi miya inaan afartaas gobol tago xaq waa u leedahay anna waxaan xaq u leeyahay inaan ku weydiiyo waxaad ka qabanaysaa afarta gobol waa u sharaxo xagga shaqada igu liidata badaba adiga case iga dhigan macnaha charge wuxuu u faahfaahiyay charge lawyerka ka soo horjeeda wuxuu rabaa charge-ka inuu tuso waxyaalaha mataqaana aan sharci lagu sii karin inuu hor keeno qatar qof oo ka dhiga qofkan dadkeenu qatar ku yahay dalku qatar ku yahay qofkani wuxuu yahay ma garanayno wadankiisu waa fiican yahay intaas oo gobol oo maray wuxuu ku sameeyay ma garanayno wuxuu ka dhuumanay ma garanayno micnihi waa qof dhuumanay ka dhigaya macnaha oo wax ka cararaya hayo shashada ugu dhigaysay qolo kasta waa ku report gareynayaan fahmaysa qolo kasta marka gobolkooda tagtid waxa lagu xil saarayaa dad kula socda haye horta gariiqaano sida systemkii waxa la isleeyahay wuu wareerinayaa commentiga dadka may waa furaya cilmi war saaxiib soo dhaw shaashada ay ugu dhigay shaashada qaraaca ma garanaysaa bal cilmi war soo dhaw gariiqaan ninkaas cilmi war waa taqaana ka qaad walaal علم ورسوله نكا واني وريا أنا أنتو كهذا يرتو أنت قبلة لا إسكمرية أنت قبلة ضد إسكمريان وأرين أد ودب بدن قف أو كلها مال أدريسية مالنا وكشقيا مالنا محكمة بلان كلها هي أنت أسوي حيابها وجود بكبدن ودتك ودن كسوق اللي دبعته كوها يكوكة هاي سومالدا إنه وحواي وأردن ماشي سومالدا حتى ماشي كوكو يستلو خلا جستا وقتها cilmi waare waa saxanta wariye aniga maalinta la soo qabanayo aniga ayagu waliba ta tageenaysan bedelanay anigu iskafaaya soo bedeshay Chicago bedeshay with council aan bedeshay driver license Minneapolis markii aan bedelay maalintii aan ka soo laabtay meesha oo license lagu soo bedesho ma sidii ka dambeeyay la qabto
laysinkaa soo bedelay wixii ka dambe gurigii loo soo daatay sababta ugu weynna waxay ahayd laysimada aan bedelay macnaha mid kastoo laysinkan abaa bedelaayay markaa tago yes because shakiya imaanayo gobolaa dareefa laysin ka qaadataa la dhahay 4 gobol maxaa u bedeshay gariiqaanu adaa ku wata gariiqaanu anigu kiiskayga horta stateka Washington buu yaalaa dhowrka gobol waxaan u marayay sahmid baan ku jiray xilligii dimuqraadiga balse anigu adresskayga meeshaan ka soo bilaabay wuu yaalaa ma ayna bedelin weligii ma bedelin weligii ma bedelin ya qofka asoon adreeskiisa bedelin gobol kale intuu tago wadanka waa ku dhex safri karaa laakiin waxaa la diidaya inaad dhowr meel adrees ka dhigato aniga maalin dhawaata dad baa isoo wacay dhahayo meel adreesay noo tahay meel waan ka shaqaynaa meel waan degannahay war 3 adrees oo kala duwan ay ii sheegeen waxaa adinkaaba shaki dadkii adinkaaba waxaa yidhi dembi isku soo jiidayaba marka Soomaalidan adreesadan faraha badan dhibkeeda ay leedahay adreeska dad bedel ayaga in loo gudbiyaa daran ee aad wadanaysan kartaa meesha horta caadi kartaa dadka qaar waa jiraan gobolada laakiin gobolka aan ka bixi karin way jiraan dad noocaas ah oo waxa la yiraahdaa FaceTime ka wacay gariiqaanu adaa ku watay dhibaatada ay leedahay arrintan waxaa ka mid ah hadda saaka gabar baa isoo wacday wadanka 2003 ay timid Seattle Washington ee deganeed green card ay ka xareysatay ma aysan sugina green cardkii uu xareysanay Ohio u soo gurtay maantadan la joogo sharci waa laadahay 20 sano ee wadanka joogtaa problemku wuxuu yahay marka qofkii meeshii uu wixii ku xareystay ayada ugu xareysan yihiin uu ka tagaya adreeskiisina haduu rabo ma bedelanayo marka waraaqa lagu soo diray dawladdu way kula soo xiriirtay waa lagu waay wadankii ma joogtaa ma ka maqan tahay laguma yaqaan dhibaatada marka dadka Soomaalida intooda badan haysataasa kamid qof 20 sano ka waran wadankii joogo oo xitaa aan green card lahayn hadda hadii la qabto xitaa wara laga celinaya wala masaafurinay marka problemka dadka haysto qaxootiga xitaa ayaga nafsaantooda way saameynaysaa Soomaalida waxaa la raadinayaa cilmiyo way saameynaysaa gobol baa lagu soo dajiyay arrinta maxaa kala socotaa cilmiyo dadka in investigation lagu suubinayo dadkii oo sharciyada citizen ka noqday siday ku imaadeen lacag lagu keenay ay ruuxooda maxaa investigation kii ugu ballaarnaayo weligiis xitaa dawladdu aysan sameeyeen inaa socdo Minnesota September waxaa laga sameeyay immigration oo waaxda USCIS ay sameysay oo ebid Mareykanka aan hori looga sameeynin waxaa la baarayaa dadkii guuri isku keenay dadkii qaxooti lagu keenay dadkii visa ku yimid oo isqabay waxa soo dhan baaritaan lagu haya dadka xitaa guryahooda loogu tagayaa aniga gabar baa soo wacday wiil ninkeeda hay dacwad u xareysay wili xitaa ma la approve gareynaya gurigeeda la tagay waa la wacay noo ima wala gurigeeda hor taaganay iyadoo su'aalaha la weydiin ninkan xagee inta isku barateen goorma iskuursateen dadkii guryahooda loogu tagayaba waaba caadi ah loogu tagayaa su'aalaha la weydiinaya arrintaas waa socotaa Minnesota way ka socotaa cilmiyo arrin kale waxaa jirta igana la cunta afka igu jirta arrin kale waxaa jirta aan goobjoog u ahaa jar Pakistani waxaa jiray oo gabar isqabeen oo mataqaanaa qabitaan macnaha caadi ma aysan ahayn waxay ahayd qabitaan oo laakiin sharci ku qaato rabbi ma fahad fiican marka waxaa dhacday waxa la jirto markii oo wax lagu ogolaanayo interview la marsiyaa jirta fiican gabadhiina waa la wacay asagana waa la wacay laba qol lagu kala xiray fiican waa dhacdaa waxaa la weydiiyey gabadhan weligeen maana wada jiifan oo dhahay waxba iskumaana samayn waxaan rabay dhaari bis inaan sharci ku qaato waaqicna ma fahansanayn fiican waxaa looga bilaabay habeenkii iskuulkiin dambeeyay dab saarteen gormo ahaa yes waa la weydiinaya that's true sabir hadalkayga dadka meesha la igu keeni doonaa wuxuu dhahay gabadhii waxba kuma soo ballamin wax la weydiin doonaan ma ogey iyadoo qolay ku xiranta interview ku socda record inaa ku socda ayada sharcigeeda saameynaysa arrintaas waayo immigration kay been u sheegaysa sharcigeeda saameynaysa gabadhaas ayada nafsaanteed dhageysaniyo waxyaabaha sharciga la isaga laaban kara kow ka tahay immigration fraudki inaad been sheegto ku soco xalay ugu dambeeyay dhahaan isqulnay haye
DNA waasha maanayo sariirta dhinacee ka seexataa هاي مدق ما كسر حتى مسبح ولا ويدينا nasabini waa laga soo socday waxaa la gurigiina beeqo qolow ka kooban yahay شفيعا waxaa kaloo la weydiiyey islaantaada ilkaheedu siduu u yaalaan ilkaheedu noocee waay شفيعا cadaga ay ku cagaysa taxta waa la weydiiyey noocaa u yahay kalarkiisu colgate-kan kalarkee waay ma cadaana ma gaduuda ma binkiya muxuu yahay qof marka aadan la deganayn waxaasoo idil kama sheegi kartid kama jawaabi kartid ما كشيء كرتي ها xoraha gaariga looga soo qaado annagana kuu keena xabsiga I'm telling you arrintaasi waa arrinta hadda ka socota Minnesota maalin wata nin Soomaaliya la qabtay oo xaaskiisa wuxuu soo sameeyay shahaado dhalasho oo dhimashahu Kenya uga soo sameeyay intana xaasa u joogta xaaskan wuu dilay mid kalena Yurub ku qabay waa la qabtay saaxiib waa la xirano laba xaasoo midna Mareykan u joogto midna Mareykan uu badilaba ilmana uu ka dhalayay waa dhimatay waraaqahu wata ma garad ilmana uu ka dhalooya midna Sweden u joogta maalin wata la qabtay braad horta cilmi warow xaalad badan baa iska jirta gariiqaano sheekada ugu qosol badan waxaa tiri naagtaadii sidee saas maxaa ku samaysay haddana bidix biyaa u seexatay mise midig sida warhabeenka u dambeeyay dharka wata lagu weydiinaya xitaa raajabatada ay wata ka Soomaaliya waxay hada lagu leeyahay hadii la rabaniyo dad waxaan fahansan faroodka iyo sida loo baaro fahansana ku baaraya mataqaana waxa ay ku weydiinayaan u qoran yihiin isla hadaa xitaa soo xifdinaa jirkeeda xitaa fiire ha jirkeeda maxaa calaamadaha ku yaala lagu weydiinaya xitaa maxaa calaamadaha jirkeeda ku yaala lagu weydiinaya ayadana waa la soo baara jirkeeda la soo ogaana inta lagu weydiiyay ayadana la weydiinaa marka halkaas waxay ka heleen in meesha uu shaki jiro oo soo xireen ninkan meeshaan uu keena macnaheedu aniga waxyaalaha aan goobjooga u ahaa oo de ragga marka la soo xiro qofka waa iswarsanaysiin ma fahad qof walba sida lagu soo qabtay xaaladiisu waxay ahayd kiiskiisu wuxuu ahaa uu ku sheegayaa waa la iswarsanayaa meeshu waa jeel marka kiila qosol badnaanta ninkaasuu ahaa ani marka dad badan waxaa jira Soomaalidu waxa soo badannahay waa ku shaqaysanaa waa hawlaheenna marka dadka qasqabitaanka wax ku raadinayo waa inaad wax badan marka hore iska warsatiin qofka intaadna interviewga aadin before fiican waran xitaa waxaa la weydiinaa markii ugu horeysay oo isbarateen qaabka isku barateen ma wuxuu ahaa saa isku barateen macnaha waxa isku aragteen jid ma waxa isku barateen social media ma waxa isku barateen macnaha dad wada soo wada koro school isku barta ahaydeen tii ask waa lagu weydiinaa waa in siina waliba qashka in siinaani soo haddaadan garanaynin waxaasoo dhan aysan marka hore maskaxdaada ku jirin maxaa ku jawaabaysaa qofkan lacagaaba ku heshiideenba ama waxa ku heshiideen qaraaba ahaan ay kugu doodaysa ay kugu camiraysa maba garanaysid waxaa uga jawaabtay haddii marka jirto oo arrintaas kediska ay ku qabsato waxaa uga baxsan kartaa wax walba say ahaayeen inaad u sheegtid wax walba inaad waxba ka leeyahay labadiinaba adigana siday ahayd qofkaas kalena siday haddii wixiina sax yihiin waa waxba aada qarin صح wixii aadan aqoonna ma garanaya dhihi kartaa cidna kuma dhihi karta ma xasuustaa dhihi kartaa qofka saas ku barateen oo kaleeto ma xasuusta ma dhihi kartid yaa you can say ma dhihi kartid qofkan cilmi waara raba inaan su'aal weydiiyo cilmi waaro aniga balan aan tagay qoladii balanta aan u tagay aysta balanti markaan maraan weydiiyey marka waxaan ku yiri maxaa yani balanti waatan waa maraynaa waaba balan baa noo taalo waaba inimidba waana fasaxaysiin haddana wadadii aan naga qabanaysiin maxay ku dhacday eegi baa waxay leeyihiin iska ilaali kuwaas marka maxaa farqi u dhaxeeya labadaas kolo waa fahmi waayay ku wareeray ورن هدي اللي قصود هذه كوكو حرنتا قريقة كل جرني وهدي الشرعلان ده معاه بقصود أنت بارول اللي قصود داي مركي علمي هذا وتاه مركي وضعك اللي قصود داي بارول ورقة اللي راه هالسنة اللي قصود داي لكن ورقة واحد قرنت any time لقى كان صار كرا لقونا حيد كرا سفر معني جرانتي هذا ما أنت الدولة ما أنت الدولة هذا ماتش تي بي اس
TBS match markii la gaaro ma cusboonaysiinayna dheh waa inay wadanka ka baxaan Soomaalida TBS ta haysato marka la gaaro match 17 haddaysan bixin ka waa naqaanaa meesha joogaan soo qabanaynaa waa masaafurinayna haddaysan bixin guriga lagu tagayaa meesha joogaan u tagayna waa masaafurinayna laa xawla waa saaxiibka Cumar Shooli halka siinaya halka talo siinaya ninka haysta gabar ama xaas ha noqoto ama qaraabadiis ha noqoto gabar u dacwoo karta oo mataqaanaa hadhowtii soo celi kartaa hadduu meel ku og yahay marriage ha sameeyo markuu marriage sameeyo kadibna voluntary deportation wax la yiraahdo yes markaas caadi waa guriga laakiin ma jiri kartid shaqa u baahan nolol u baahan والله علم واربين يشيء ماي حالدا مرنay bishii adda hore iyo bishaan wiliga intaan noolaa Afrikaan jooga xataa xeeraan ah waxbay soo gali jireen wallahi waa ka farxad badnaa hadda fiiri kiraan gaaro nolol bal Minnesota joogan nin saaxiibka Minnesota joogan waa shalay wuxuu yiri wallahi November ko bishii ko tobnaad dhamaadkeeda ay ugu dambeysay yiri gurigayga iridiiso istaago Minnesota jooga 2 bilood ku dhawaad guriga iridiiso istaagin 2 bilood baa mareynaa waxaa kaaga sii daran dadku waqti America waqtigu inuu macno leeyahay markaas aad dhibinaysaa qofkii hal saac kugu isbeengareeyay waxaad dareemaysaa inuu waqti badan ku geliyay waxaa u baahan tahay marka qof cunto wixii kaaga oo kuu soo gada waxaa u baahan tahay mararka qaar qof ku qaada ilaa moogta qasab waa horta iska soo baxaysaa mar gaariga eeyaada wada laakiin qof right ku siyaa u baahan tahay exactly wallahi gabar waxaa jirta every week iyo imaa jirtay waa iga duwantaa dadka ma ilaawo macna dadkii caawina ama igala taagan way iga duwantaa because gabadhaas every week waxay u bixi jirtaa 5 hour waa oo driving ah gaari ay wado hal 2 saac bar ay soo socotay 2 saac bar ay soo socotay hal saac ay waqti 6 saacadood waqtigiisa ku horay 6 saacadood iga qof waqtigiisa ku horay ha micnii hal habeen maskaxdayda kama bixin gabadhaas waqtiga ay gelisay gabadhan adeertay waa wallahi oo filsan hadda dadka mudaharaadaya ku jirtaa oo dadka u doodayo mudaharaadkooda every night life ku jirtaa hadda markii mudaharaad ku socdo way joogtaa horta gariiqaano xilliga adag baa dadka la bartaa anigu hadda xiin faniin ah oo aad arkaysaan shalay gabadheeni dhaaya ahayd markay dhacday qolal badan baa la iska furtay qof aalada ku jira way qasab in la falanqeeyo la dul istaago balse dadkii u dhawaaba haddana waxa weeye iska tuubaraacayay horta waxaan ogaanayaa hadda bisha labaad baan guri ku jiraa habeen waa bixi jira balse waa iga soo dhamaatay reality ga dhabta balse dadka waxa la ogaadaa maalintii qofka ku garab istaagay ma la yashkuruna la yashkurullah qofka ilaahay qofka ma mahad celin ilaahay ma mahad celiyo waayo qofka xilliga adag kula baxay wuxuu kaaga qaalisan yahay gariiqaano adoo waxa haysan qofka $10 ku dhiibay ya adoo waxayso qofkii $1,000 ku dhiibay waxa kaaga qiimo badan adoo $10 qofka ku dhiibay والله ما يعبد مركز معنا بدل ما كون سمين السو واحد وسيني مرة وحي ستين والله جوداس مع أي كريس وها أي كريس وها جوداس والله يعني حتى معنا شعور كذا يا إني دريميسي حبسي كتير إلى دريميسي قف ولا له حياة والله ربتي أنا لا يمكن ذاتك كلته قارو حي بس وحاولوا كلا إسكتيرين بقى فني لا هدنا ماشي كتير وكو عيش ماشي وكو قرناتي وكو مسافة إلى معناه أيضا لك دريمة مرة إلما كوسو استاجيس معناه مرة واحد دريمة والله إنه Minnesota waxa ka socda wax caadi ah ma wax la yaabin yahay waa magara gariiqaano waxa dhacday hawsha markay bilaabanaysay waa dhawad baa waxa dhacday islaamka waxa dhigay inaan maqaaxi wax ka cunay magaalada aan joogay hadda fiiri gabdho badan oo friends ilaa waa isnaqaano xiin filino adiga baxay sport saalan ku soo direen hadda wadada citizen haysta aniga waxba haysan sidee dareemaya kuwii citizen kaysay waa guriga ku jira bustaa dul saaran kuya ma iga ruuxooda waa la haystaa dad badan waxaa jira oo lagu dhagan yahay gariiqaano hadda waxay bilaabeen ba ice dadkii inay weydiiyaan xagee ku dhalatay goormaa sharciga qaadatay baasbo waxay raadinayaan xilligii Biden aan qaatay ma garatay waa su'aalaha hadda dadka Soomaalida la weydiinaya kamid tahay wallahi goormaa xagee ku dhalatay Biden oo sharciga qaatay oo loo ogolaaday oo green cardkeedii waa la haystaa investigation ugu wada ayaga hataa wardad xitaa group 5 iyo qaxooti ahaan dawladda ay ku keentaan la xiray Minnesota labadii maalmood oo la soo dhaafay oo I-94 haysto
هلا حرينيو تكتس لقى توران مقلي ما هو لغوها كم بحثها من السوداء wiilaan saaxiibana adeerkiis green card u haystaa 3 days uu Minnesota ku xirnaa maanta Texas la geeyay كان يماجن وكان سفير 3 days uu xiran yahay loo yaraa loo qabtay waxay dhaheen waxba lagama qaban karo maya mar haddaad gacanta geshid waa ku dhaco tuu ku ciidamaday looyarku waa kaa badsanayaa deeqa qof arkay oo maxkamadii markay tagayeen suuxii looyarku gambiyey because 5 qof oo looyarku yahay isku saacada اسكو ساعد ku gambinaya looyarkii markaas waxaan ku iri waxa lagu leeyahay bil ka bacya dara soo laabo maxkamadda kale judge was kaga dhawaaqayaaba next bil ka bacya la yikeen leeyahay abo warqadaba الا dad badan oo taagan meesh wax ku sugaya male dad ku badan male marba hadaa gacanta gashid waa ahaatay brad midda kale ni laatiinka laakiin la gaariyaala laatiinku maxkamadba waqti iskaga lubiyaan lawyer isan lacag bixinayn waxba ka bixi maayaan markii la soo qabto si amigos wadanka dharbayli wadanka madagayga dirilay gariiqan kambaag soo sameynaya gaas kambaag soo sameyn kara uu dhow yahay meesha u dhow midka igu qosolka badaa wuxuu ama taqaanaa waxay ku soo qabteen kaar shaqo oo feega asagoo watay qabteen marka xogaa marka waa iska hal sano camal adiga kood markii Fred lagu qabto dadka laatiinka u qafiifiyaan 2 bilood ay soo gubeen ka bacdiya loo keenay anaga meeshii marka la keenay maxkamad kale marka saarayaan oo immigration-ka marka wax lawyer free lawyer waxa jira marka kula soo xiriiriyo free iska kuwa marka way u sheekeeyeen waxay yiraahdeen lawyer ha iskugu dhawaanin ani waa laabanaade xariifkana waa xariif cibaado ka dambeeya no church iyo waxa laga dambeeyaa kaniisad iyo salaada laga dambeeyaa marka waxa jirto waqti waxa jirta oo lockdown amal la galo oo inta la istirinayo qoralka la isku xiro ninkan 30 daqiiqo wuxuu la fariistay ooyin maxal ooyaha iri maxkamadan birileeyo uu yiri ni wadankayga naagteedii kulaha 3 sano iga dhibato lacag ma sameyn kulaha $20,000 ku soo tahriib haddana micni ays xitaa ma helayo dhahay xabsi kale dheer la wuxuu ku mirama wixii feegay la ugu qabtay aniga yaa ay habaaro taagay maxaa soo doonay abaad la dhacay dirtigu feer la dhaca barwa ooyaa marka dadka qaar calooshi ka hadlayaan meesha markay aragtid qosolka ka dhamaanay gariiqan wada hadal ku wata cilmi warow dad badan baa na daawanaya dhalinyaro badan oo aalada ku dhageysataa abdeedii newsyada siisid xaalad adag baa lagu jiraa wali ma dhicin Minnesota hadda haddaad maqli jireen Afrika marka joogo free stress waa lagu caatoba America dadku waa ku cayileen way caanay furcasta guriyaha iska yaala sakin baa talaagada u furanaysaa adoo dhan bay la qofku team aadi meesid kuwa waxay soo qorayaan jabra USA aaday jabra meel la sacaano aaday USA ma aadin ninkaas uu meel aaday la sacaano aaday لا تعالى تريد سوا مالر ما جرو علم وارو قبل أدو دلنير هرمود بان واها أصحابي وجروبي وحولبا أنا داي وحن واها لما تقف اللود اللي كرو دلنير ريالتي قدرتها أبدأ داي مركي حل حري ولقي ما تجد حتى لما مركي بلايا ضد قيبسي قفك كليه كواي نجستي بس دين علماء هذا العلماء كتو كذا تصبح سيدا قريقان midda aan ku sheegaya horta niyada qayra loo sheegaa ma fahanti ma taas weeytaa aniga waxa jirta clip aan soo dhigay maalintii oo Donald Trump la doortay maalinta ayada America waa ka niijaw ma fahanti sax maalintaas waxa ay sawirantay maray ahaataba in la qabanayo qabsi aan galayo ka bacdina aan bixi doono way ii sawirantay ma fahanti hay wallahi hada kaftar ma niyadeyda gashada macna niyad ahaan waa aaminaba waxa proof gal video waa soo dhigay inaan baxaya maalintaas uu yaala TikTok ila hada yaala way ka fiiri karaan dhalinyarada fiisa soo kor saaray bye America soo qoray maalintaas niyo marka niyadaada waxa gashataa inaad joogaysid inaad sharci helaysid niyadaada marna waxa gelin baxaysid absida kale yar ma isma dhiibin niyada ari maalintaas isdhiibay waana suurta gashay way dhacday haddii marka cabsi ay kugu jirto haddii cabsi kugu jirto waa baxaysaa niyo may waa The great irony is, of course,